السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mahad iyo ammaan iska leh Allah Allahiina barbaariyay oo hadana wadadiisa toosan inoo sahlay oo hadana naga dhigay ummadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. intaasi kadib walaalayaal waxaynu ka hadlaynaa cafiska iyo saamaxaadda waana wax looga baahan yahay qof waliba. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka meelo fara badan ayuu uga hadlay cafiska iyo wanaagiisa. Alla weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. oo micnaheedu yahay u degdega dambi dhaafka rabbigiina xaqiisa ka ahaaday iyo janno uu balaceedu la mid yahay balaca cirarka iyo dhulka oo la isku daray. jannadaasi oo loo diyaariyay kuwa dhowrsada kuwaas oo ah kuwa xoolahooda bixinaya marka ay dheefta haystaan iyo marka ay dhiban yihiinba. sidoo kale kuwaasi waa kuwa caradooda qarinaya ee dadka iska cafinaya. ilaahayna waa jecel yahay kuwaasi wanaagga samaynaya. sidoo kale Alla weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri suuratul baqara aayada 109 fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. oo micnaheedu yahay cafiya oo saamaxa ilaa uu Ilaahay amarkiisa la yimaado waayo Alla waa mid wax kasta awooda. sidoo kale Alla weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri suuratul maa'ida aayada 13 fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. oo micnaheedu yahay iska cafi oo saamax Ilaahay waa mid jecel kuwa wanaaga samaynaya. sidoo kale Alla weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri suuratul hijri aayada 85 fasfahi as-safha al-jamil. oo micnaheedu yahay cafi oo si hagaagsan u saamax. sidoo kale Alla weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri suuratul a'raaf aayada 199 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. oo micnaheedu yahay cafiska qaado wanaagana far kana jeeso kuwa jaahiliinta ah. haddaba walaal iska cafi kuwa aad jeceshahay iyo kuwa aad necab tahayba haddaad rabto inay hoos imaadaan noloshaada qayb ka mid ah. iska cafi cadowgaaga maxaa yeelay ma jiro shay uga ciriiri badan inaad iyaga iska cafiso. cafi si aad u raaxaysato. cafintu waxay u baahan tahay qalbi xoog badan oo yaqaana micnaha nolosha oo iska xaqiro ismoogaysiiya qaladyada bani aadamka. iska cafi kuwa ku xumeeya waliba adigoo ka aarsan kara maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaad ka helaysaa ajir. sidoo kale zamankani aad ay u yar yihiin kuwa wax cafiya. iska cafi maxaa yeelay adiga ayaa ah midka ugu horeeya ee ka faa'iideysanaya cafiskaasi sababtoo ah waa wado aad ku helayso jannada Rabbi. jannaduna waxay u baahan tahay qalbi qanacsan oo tawaaduc badan oo nacafis badan intaasina ku darsaday akhlaaq wanaagsan. iska cafi si aad u raaxaysato ogowna inuu Allah subhanahu wa ta'ala kuugu bedeli doono wax wanaagsan had iyo jeer. u noqo mid u naxariista kuwa dhulka jooga adigana Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku naxariisan doona. iska cafi dadka maxaa yeelay cafiska wuxuu dhaqaa ama mayraa qalbiga bani aadamka wuxuuna cusboonaysiiyaa jacaylka. iska cafi dadka maxaa yeelay cafiska waa midka horseeda nabadda iyo jacaylka wuxuuna isku furaa qalbiyada labada qof. iska cafi dadka maxaa yeelay cafisku wuxuu nuur ku shidaa qalbiyada kala fogaaday muddo wuxuuna sifeeyaa wixii hore oo dhan. waa dhadhanka qalbiga iyo cusboonaysiinta qalbiyada.
qofka cafiska badanna uu ka naxariis badan yahay dadka kale wuuna ka karaama badan yahay haddaba noqo qof cafin badan maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala ba addoommadiisa markay dembi ka galaan oo ay u toobad keenaan wuu cafiyaa haddaba adigoo addoon miskiin ah sideedan u cafinaynin dadka waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh